بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي ليس لي لن يقضي ربي من يا ترى يضمني يمدني بناشب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد sida walaalu qoondeeyeen waxaan ka warrami doonaa qisadii ku saabsiisanayd islaamnimadii salmaan alfarisiy abu cabdullah salmaan ibnu lislaam ninkay culamaai taariikh ku tilmaamaan. salmaan waa saxaabi jaliila oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waxaanu ka mid yahay saxaabadii cilmiga iyo zuhdiga ku caanbaxday. waa nin saxaabiya oo raggii cilmiga ku caanbaxay ka mid ahaa, islamarkaana ka mid ahaa raggii zuhdiga ku caanbaxay. waayo waa ninkii amiirulmuslimiin laga dhigay inuu ka taliyo beershiyadii hore markay muslimiintu qabsadeen magaaladii madaa'in la odhan jiray, isaga ayaa waali looga dhigay. madaa'in waa magaalooyin yaryar oo boqoradii beershiya hore ay samaysteen oo iminka iska xaafadun dacalkeeda ku taalla magaaladan hadda baqdaad la yidhaahdo. madaa'in markaa waa magaalo qusuur kala googo-ana, 7 magaalo yaryar oo isku naban, qusuur kala googo-an. alqasri albaydaana uu ku yaalay, gurigii cadda guriga la odhan jiray ee looga talin jiray dowladdii beershiya. dhulka markay muslimiintu qabsadeen waa ninkii loo dhiibay. maca daalik waxaa la yidhaahda diiday xataa meel la galo geedbu iska loo saagsan jiro. markii dambe la yidhaha guri kuu dhisno, ninkii buu yeedhay saxaabigii guriga dhisay wuxuu yidhi maxaad dhisi doontaa? waxay ku yidhaahdeen mid haddaad istaagtana madaxaagu gaari doono, hadaad iskala bixisana cagaha in badan iyana gaari doonaan, yacni koox yar una aada harsato. halkaasuu nolosha ka joogay. qisasku markay yihiin sheeko dhab ah dhacday way ka cibro badan yihiin waxyaabo badan oo kale, bini aadamkana way kaga raad badan yihiin. salmaan qisadiisan aynu ka warrami doono waa qiso tilmaamaysa bini aadama oo xaq raadiyey. inagu waxaynu naqaanaa oo maanta agteenna ku caana safarada xoogsitaga ah, in dunida halka u dambaysiiyo halka u la maro safar xoogsitaga. inta xadeena inay ku waraysato oo warka ugu quruxda badan lahay kalaanu noqdo hebel wuu gala. laakiin waxaynu marka kan akhriyi doonaa safarkaa ka gadisan. safar uu safray nin qoys ladan ka dhashay oo hanti haystay oo mujtamaciisa ka tirsanaa, laakiin safarkiisoo dhammi uu ku salaysay inuu xaq raadiyo.
inuu xaq baadi doono safarkiisa uu ku salaysan yahay. walidaalika qisadatan waxaan jeclay inaanan riwaayaadka tirada badan lee taariikhtu soo arooriso soo qaadanin ee aan soo qaato oo qudha hal xadiis ama hal qiso oo sanadkeedu xasan yahay. yani imaamu axmed xadiidka uu soo saaray oo rijaalka sanadka ku jira dhammaantood rijaalu saxiix baa yihiin ilaa iyo ibnu isxaaq mooyaane rijaal fiqaat ay yihiin. ibnu isxaaqna uu rajul xasan alxadiid yahay, xadiidkaasi oo culamada xadiidka ku tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay. xadiidkaasi markaa wuxuu ku saabsiisayay waa salmaan alfarisi iyo isagu iska warramaya saxaabi kale oo yar markaa cabdillaahi ibnu cabbaas saxaabigii la odhan jiray buu u warramaya. waxaan uga warramaya taariikhdiisii nololeed ee xaqraadinta. cabdillaahi ibnu cabbaas markuu xadiidka warinaya wuxuu leeyahay waxaan ka qaatay min fii afka salmaan baan xadiidka ka soo qaatay buu leeyahay. cid kale igama warramine salmaan laftiisa ayaa warka ii sheegay. dhacdada tan waxaynu ka fahmi doonaa marka haddii aan la yidhaahdo inaanay wada sax ahayn in laga dhigo qofku inuu majbuuriyo waxba haynin. qofku inay bii-ada uu ku nool yahay iyo duruufta ku weegaarsan aabbiyo hooyaha dhalay iyo hiddaha iyo taraaciduu ka tirsan yahay iyo caqligiisu intuu sakaagiisu gaadhsiisan yahay intaasuun inay xukunto uu yahay munfacil, yani qof isaga wax loo tilmaamo markaa aan ka dhex bixi karin inuu yahay. aynu tilmaamno in hadduu niya saadiqa la yimaado ikhlaaq ku jiro dhab ay ka tahay waxa kale uu raadceeyo inuu gaadhi karo isagoo duruufta uu ku nooliyay iyo bii-ada uu ku nooliyay iyo waxoo dhan ay dhanka kale ka yihiin. waa xujada dadka caajisiinta ah. xujada dadee maxaa sameeya duruuftaa sacab ahayd meeshaan ku noolayn baa ka ahayd nolosha caynka ahayd nolosha caynkaasoo dhan waa la bedeli karaa hadday dhab qaatay. waa xujada dadka kusaalaha dadka caajisiinta ah. waxaa mudan runtii inaan tilmaamo intaynan qisada sheekha la yidhahda maxamed raatib an-nafsi oo ka warramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo ka dhigtay. sheekhaasi oo ka warramaya siirada saxaabiga kan wuxuu muqadamo uga dhiganaya markuu masalada ka warramayo. wuxuu leeyahay insaanku hadduu xidhxidho ay dhab ka tahay oo ay casiimadu jirta inuu xaqa gaadhi karo aan mihaal idin siiya buu yidhi. mithaalkiisaasi wuxuu ku bixiyey runtii mithaal maanta aada qariib dadkan maanta jooga ugu noqon karaa. wuxuu mithaal u qaatay nin 55 jir ku soo gaadhay isagoo ummiya 55 sano ku soo gaadhay isagoo ummiya dabeetana go-aanka qaatay inuu wax barto qoraal iyo kitaabo bilaabay qur-aanka xifdigiisii ku xigsiiyey sulamkii xiga ee shareecada loo marayay maray dabeetana noqday sheekhii masar ugu weynaa sheikhul azhar masar ka noqday. waa nin 55 jir waxbarasho ku bilaabay qoraal iyo akhris iyo qur-aan la xifdiyo isla markaasi gaadhay inuu noqdo sheikhul azhar. 96 jir buu ku dhintay markii dambe. wuxuu leeyahay sheikhul azharkaas min rajul laa yaktub laa yaqra fii sinni 55 ku gaadhay ayuu ahaa buu leeyahay. laakiin markuu go-aankan iyo casiimada tan qaatay wuxuu noqday inuu sheikhul azhar noqdo muddadaa yara kooban. ilaahayna wuxuu inoo tilmaamay